السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta waa talaado taariikhduna waa 5 bisha May sanadka 2026 barnaamijkeena gabi ahaantii waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe haddaba warbixinada aynu saakaydii kugu hayno waxaa ka mid ah Hormuz oo la sheegay in lagu kala cararay Mareykanka iyo Israa'iil oo u diyaar garoobaya dagaal diyaaradaha ka qayb qaata duqeymaha Mareykanka oo soo gaaray Israa'iil Iiraan oo difaac gashay xaalka oo cirka isku shareeray wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa intaan ku jirno waxay warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay saakay waa talaado taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 5 May sanadka 2026 waana barnaamijkii ugu horeeyay haddaba iyadoo qodobo muhiim ah oo dhammaantood ku saabsan xaaladda gobolka Bariga Dhexe ay noo soo socdaan ayaan ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Hormuz oo saakay lagu kala cararay xaaladda oo markaa aad cabsi u ah in halkaa dagaal weyn uu ka qarxo Israa'iil oo sheegtay inay heegan buuxa ku jirto oo ay sugayso dhanka Mareykanka iyo Israa'iil oo diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ku jira si ay mar kale u bilaabaan duqeymo ka dhan ah Iiraan haddaba marka ugu horeysa aan aragno telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu qorayaa warbixin uu leeyahay Israa'iil iyo Mareykanku waxay u diyaar garoobayaan inay dib u bilaabaan dagaalka ay kaga soo horjeedaan Iiraan hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay sheegtay Mareykanka iyo Israa'iil inay u diyaar garoobayaan dagaal Iiraan ay ku qaadaan iyadoo la sheegay Israa'iil inay soo gaareen oo ay ku soo degeen qaar ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee waxbamgareeya ee Mareykanku uu leeyahay telefishinka la yiraahdo kanaalka 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa saaki waxa uu sheegayaa in xaaladdu ay aad u kacsan tahay dhinacyaduna ay ku jiraan diyaar garow xoogan oo dhan kasta ah waa tahay marka dhankaas waxaa leeyahay marka Mareykanka iyo way diyaarsan yihiin way u diyaar garoobeen dagaalkaasay rabaan inay soo qaadaan diyaaradaha tagay Israa'iilna waxaa leeyahay waxaa ku jira kuwa waaweyn ee shidaalka qaada ee hawada diyaaradaha wax duqeynaya ku siinaya isla maantay iyagana war ayay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyaguna waxay sheegeen inay diyaarsan yihiin haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay qoraya telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay mas'uul ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxa uu sheegay Trump inaanu awoodeynin inuu markaa dib ugu soo celiyo siduu dagaalka ka hor ahaa marinbiyoodka Hormuz xaaladda inuu sidaas ku soo celiyo markaa ma u suuragelayso leeyahay ma awoodi karo haddaba mas'uuliyiinta ciidanka ilaalada kacaanka waxay soo kala sheegeen markab kasta oo markaa aan ahayn kuwa cadowga ee doonaya inuu gudbo marinbiyoodka Hormuz waxaa waajib ku ah inuu helo ogolaanshiyaha Iiraan waanu bartilmaameedsan doonaa markab kasta oo cadowgu leeyihiin ee doonaya inuu ka gudbo halkaas oo ah marinbiyoodka Hormuz way marka nimankaasuna way isdiyaarinayaan nimankan iyagana ciidanka ilaaladuna waxay leeyihiin ninka Trump la leeyahay waa wareersan yeedheen meeshaan siduu markii hore ku ogaamaba ku soo noqonaysa dheen Hormuz cadowga ma soo maraayo ninkii kale inuu marar rabana idamka ama ogolaanshiyaha Iiraan ayuu ku soo mari doonaa dhehen marka sheekadu marka halkaa markay marayso dadka wax falaqaynaya waxay leeyihiin xaalku ma fiicna saacad kasta ayaa laga yaabaa in dagaalkii weynaa uu dib u qarxo haddaba qodob kale ayaynu dib u geli doonaa oo aad la yaab u leh shalay Imaaraadku waxay sheegeen 12 gantaal iyo drones in looga soo weeraray dhanka Iiraan ilaa xalay Iiraan wax jawaaba marka kama bixinin saakay marka mas'uuliyiin Iiraaniyiin
ayaa waxay leeyihiin waxa weeraray imaaraadka annaga maba nihinba oo yaa weeraray waxa weeraray maraykanka leeyihin imaaraadkuna waxay leeyihin iiraanaana soo weerartay waxay leeyihin annaga ma aha waxa weeraray meeshaan nimankan waxa weeraray oo weerarka ku qaaday waa maraykanka si fiican ha isaga baaraanay dheheen saakii marka shaki weyna adduunka soo gala shalayna waa tii markii weerarka dhacay adduunyada dhan isla qaylisay ururka iskaashiga khaliijka dowladaha khaliijka dhan ay cambaareeyeen faransiiska madaxweynahooda macron uu cambaareeyey weerarka iiraan ay ku qaaday imaaraadka ala lahaa saaka iiraan waxayba taagan tahay waxa weeraray imaaraadka annaga maba nihina dheh marka sheeka yaabla waay aniga maahiya ka socota haddaba wararkii ugu dambeeyay haddaan idinla wadaago mas-uul sare oo iiraani ah ayaa beeniyey in markaa iiraan iyadu bartilmaamaysatay imaaraadka wuxuuna ku eedeeyey maraykanku inay yihiin kuwa iyagu ka dambeeya arrinkaas inay yihiin u fiirsada marka waxay leeyihiin iiraaniyiinta annaga maba nihinba waxa shalay dhan gawda ku hayay imaaraadka inay si fiican isaga baaraan waa iska hubiyaan marka sheekada waalida iyaduna way soo korortay way socotay laakiin imaaraadku waxay leeyihiin annagu waa ognahay ciddan soo weerarto waa iiraan waxay leedahay almaadeeryaalo annaga manihin maraykankan meesha dhoobanaya nagteeda ka saaray marka sheekadaas iyaduna way qasan tahay dhanka kale wararka kale soo kordhay xiisaha leh waxaa ka mid ah maalmo ka hor kuuriyada koonfureed waxay sheegtay isbahaysiga Trump uu abaabulayo ee lagu furayo Hormuz inay qayb ka yihiin markab ay leeyihiin kuuriyada koonfureed ayaa shalay Iiraan nagta ka saar dab ayaa isqabsaday 24 shaqaalaha ayaa degdeg looga dejiyay kuuriyada koonfureed way fakareen waxay dhaheen Mareykan waxba idinka celin karee nimanka ha isku dirinin meeshaan haddaa maraakiibtiina ka gudbinaysaan isbahaysigan baas waxba idin tari maayo waa ka baxnay dhah saaki waray soo saartay kuuriyada koonfureed ay leedahay annaga isbahaysiga waaba isaga baxnay dheen haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey telefishinka la yidhaahdo CBS News ee laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay kuuriyada koonfureed inay dib uga laabatay ka mid noqoshadeeda howlgalka Maraykanka uu hogaaminayo ee Hormuz telefishinka waxa uu soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed waxay sheegtay in kuuriyada koonfureed ay arrinkaa dib uga laabatay oo aanay markaa shaqo ku lahayn isbahaysigan uu Trump uu markaa wado ujeeda marka meeshii waa lagu kala cararay xaaladii marka waxaashay maraysaa kala orod aniga isbahaysigii Trump kuma jiro iyo aniga hawsha ayaa la ii soo dhaweyn aabeeshi ka socota marka wararkaas halkaas ay marayaan haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbi doonaa qodobkeena kale ee ku saabsan wixii akhbaarada ee soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay ugu dambeeyay barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo talaada haddaba barnaamijka qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaa alaaba akhbaaraadka wixii soo kordhay haddaba telefishinka la yidhaahdo Fox News ee laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa wuxuu soo xigtay madaxweynaha Maraykanka oo leh waa ka tirtiraynaa dhulka Iiraan wuxuu leeyahay dhulka waan ka tirtirayaa Iiraan haddii ay isku weerarto maraakiibteena jooga gobolka marka wuxuu leeyahay dhulkan ka tirtiraynaaba ayaga dhan waa tirtiraynaa waxaan ku garaacaynaa waxaan la ogeyn hadday maraakiibteena isku taabtaan dhanka kale ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa iyaguna soo bandhigay video ay ku muujinayeen weeraradii shalay ay ku qaadeen maraakiibtii Maraykanka ee isku dayay inay soo maraan Hormuz iyadoo videogaas uu muujinayo in gantaalo culus ay ka dhacayeen badda lagu garaacay oo dhinaca bariga laga tuurayay oo Iiraaniyiintu ay tuurayeen oo ay maraakiibta Maraykanka ku weerareen inkastoo Maraykanku ay sheegeen in maraakiibtoodu aanay waxba ka soo gaarin weeraradii ugu dambeeyay dhanka kale Maraykanku wali waxay sheegayaan laba ka mid ah maraakiibtooda dagaalka inay ka gudbeen Hormuz
halka Iiraan iyaduna ay beeninayso ay leedahay waxaas wax ka jira ma jiraan. haddaba saaki marka wararkii ugu dambeeyay Hormuz haddaan idinla hadlay waxa leeyahay wax dhaqdhaqaaq oo ka socda male. Hormuz sidii u xirantay go'aankii uu iyo amaradii uu bixiyay Trump hal furo ahayd waxba waa ka shaqeyn wayana leeyahay. marka xaalku hadda halkaas u taagan yahay. wararkaas ayaa ugu waaweynaa waxay soo kordhay diyaalaydno akhbaaraad kale haday soo dhacaan oo ku saabsan xaaladahan barnaamijyada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan